doorashada waa inuu qabto waxaanu haddeer uga tagnayna waxay ahayd aanu isku qabanayna doorashada inuu qabto markuu aanu aragnay doorashadii la qaban waayey saasaanu uga nimi ay noo taalla gobol isku filan baynu nahay sida walaalaheen u tashadeen iyagana u tashanayna waanu aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waxay ninkaan dadka u mahadnaqay ilaahay ma shukri noqo runtii waanu idinka filaynay madax dhaqameedkiina baanu nahay ilaa si fiican noo soo dhaweysaan waayeelada iyo waxgaradka iyo dhalinyarada noo taagnaa labada maalmood halkan aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa mahad dabadeed waxaanu annagu markayagu wuxuu yahay waana kooban yahay waana ballaaran yahay markayagu wuxuu yahay horta marka hore hirtanaagow annagu waxaanu idin ahayn sahanka aanu idin ahayn waxa weeye ergaanu idin ahayn muddo sanada baan waxaanu joognay Hargeysa waxaanu soo ogaanay inaan waxba la idin ogolay taa horta waanu idin sidnaa aniga way garanaysaan madax dhaqameedkiinii baan ahay 9 beelood oo halkan ayaa wada doortay muddo 19 sano runtii maanta in waxaanu soo goosanay inaanu abaartayda ka saarno gobolka waa ogtihiinoo Soomaaliland waa barkii Soomaaliland waa ogtii waxaanu saamay qaybsi u leenahay waxa weeye arigaaba waxaanu leenahay inaynu gobolkeena waa gobolka ugu khayraadka badan wadanka weeye waa gobolka ugu maxay shidaalka badan waxa oo dhan waxa weeye waxaanu ka nahay marti waxaanu sabab ugu daabka badan waxaanu rabnaa heer arigaaboy dawladda saami qaybsigeedii wax ugu dambeysay waqtigii cigaal 35 baa dictator ugu magacaabay beelaha oo dhan maanta 5 kuma lihin waxa oo dhan waa dulmiyay bini'aadan kale waxa weeye inuu naftiisa dulmiyo maaha wax la idin ka baahayaa aanu dina nibitaro taasi waa waji inaa isku duubnaataan inaydaan waraciyo ka sax noqon warkaanu diisna wada qaadataan iyaanu idin la nimi qodobka labaad waxa weeye waanu idin sidnaa xaga haddaanu ka nimi wax la yiri saddex wax laguma dhaqo wax la yiri saddex ma dhaqanto wax la geelan doobi lahayn ma dhaqmo qabiil madax lahayn ma dhaqmo madaxan qabiil lahayn ma dhaqmo qabiil anagu markaanu noqonay madaxan qabiil lahayn haddaanu halka warkeeda idin soo koobno waxaanu noqonay qoladii magaca yar u bixiseen madaxan qabiil lahayn ma dhaqanto qabiil madax lahayn ma dhaqmo taa waxa weeye macnaheedu waxa weeye anagu waxaanu ogaanay inaanu noqonay odayaana qabiil lahayn kuwaas tiraana waxaanu leenahay iska kale xul lama joogtaan way isla ognahay halkaas aan kaga tagayaa ariga kale aan sidnaa waxa weeye waddanka waa ogtihiin waxa ka socda arrin adag baa ka socda gobollo badan oo inaga mid ah iska tagay gobollada marka la eego dhinac bay gar ka leeyihiin Soomaalidu waxay ku maahmaadaan ninka isha ku xasaya oo dal loo xasaya heer laascaanood markii loo xasayay isha iyo oo taxsayay waxa weeye taasna waxa weeye waa ka timi xagga xukuumadda inagu heer sanaag waxaanu idin wadnaa haddaan jawaab degdeg ah inaan helin oo doorasho degdeg la qaban waxa weeye heer laascaanood waynu tashanaynaa tala ay noo taalla gobol isku filan baynu nahay sida walaalaheen u tashadeen iyagana u tashanaynaa waxaanu kaloo idin wadnaa oo aanu fariintaan u diraynaa madaxweynaha waxa weeye doorashada waa inuu qabto waxaanu haddeer uga tagnayna waxay ahayd aanu isku qabanayna doorashada inuu qabto markuu aanu aragnay doorashadii la qaban waayey saasaanu uga nimi horseed hagar kuma maqna annagu dawladda waxaanu xajala naga haysa iyaanu ugu noqnoqonayni waxaanu ugu noqnoqonayna xajala naga haysa waa in loo soo maray baanu ogeyn haddii waa in loo soo maray ragawadu si yar u qubo anuna de waa la qubi doonaa taasu waa taa madaxweynaha fariintaan u diraynaa waxa weeye balay wax noo ah in aanu ku dhawaaqno badbaado qaran oo gobola aba heer qarana madax badan sogeyn 7 nin oo badbaado qaran in lagu dhawaaqo iyagu dadka doorasho gaarsiiyaan waxa weeye
madaxweyne waxaanu ku leenahay arrinkaasu waa run waa ima doona